إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan rabaa inaan halkan tacsi tiiraanyale aan uga diro gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariisow oo maanta naloo soo sheegay geeridiisii. waxaan rabaa inaan tacsi u diro ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto, gaar ahaan dadka reer gobolka Banaadir iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo saaxiibadii iyo waalidkii iyo walaaladii uu ka dhintay oo dhan inuu Ilaahay sabir iyo iimaan uu ka siiyo. gaar ahaan waxaan tacsi gaar ugu dirayaa caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo hooyadiis oo nool intaba inuu Ilaahay naxariistii janno inuu Ilaahay sabir iyo iimaan uu ka siiyo, asagana uu naxariistii janno geeyo. nin wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed ah oo dawladnimada Soomaaliya maanta lagu jiro qayb lixaad la ka soo qaatay, ka soo shaqeeyay, waqti dheer baa isnaqaanay oo saaxiib ahayn. xukuumadihii badnaa oo is soo bedelay oo aan iskala mid baan ahayn. xukuumaddii ugu horeysay oo lagu qorayay oo ahaa wasaaradda lacagta, xukuumaddaasaan iskala tirsanayn oo anna wasiirka dekedaha aan ka ahaa. xukuumadda hadda ugu dambeysay baan iskula jirnay, muddo dheerna saaxiib baan ahayn. nin Soomaali ah, nadiifa, dalka iyo dadkaba waxtar ah, wadani ah, daacad ah ayuu ahaa. Ilaahay ha u naxariisto, naxariistii janno Allah geeyo. gacanka xaq daran baa dishay dad dulmi iyo masiibada ummadda Soomaaliyeed habeen iyo maalin ka shaqeynaya dilay. dadka haldoorka ah oo waxtarka dawladnimada u ah loo soo diray oo caqabad ku ah. waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto, intii qaraabo iyo ehel ahaydna sidaas oo kale samir iyo iimaan Allah ka siiyo, annaga dhanna samir iyo iimaan Allah naga siiyo. mas-uuliyiintii ugu sarsareysay dalka iyo dowladda federaalkana waa uga tacsiinaynaa geeridaas naxdinta leh oo ku timid gudoomiyihii hore Yariisow. Ilaahay ha u naxariisto. waxaan leeyahay annagana samir iyo iimaan Allah naga siiyo. waa iska arin waxa weeye qadar Ilaahay oo qorneed ahayd. gacanka xaq daran baa dhibaataysay oo dhibkan u geysatay oo dishay, asagoo waajibaadkii dawladnimada fulinaya oo adeegyadii bulshada iyo shacabka soo ugu adeegi lahaa ka shaqeynaya, oo ugu dambeyn shirki amniga asoo ku jira lagu markii iyo dhibkan uu ku dhacay oo shirki amniga uu waday sidoo dadka gobolka Banaadir ay amni iyo nabad ugu noolaan lahaayeen iyo horumar ka shaqeynaya. horumarkii iyo bilicdii iyo quruxdii gobolka Banaadirna soo celiyay. marka waxaan leenahay asagana Ilaahay qabriga ha waasiyo, annagana samir Allah naga siiyo. intaasaan tacsidaasaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyo. aad iyo aad u mahadsantiin.